الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر. ودفعتي ugu horeysay ee uu soo saaro kana qalin jebinaysa Machadka Ibnul Qayyim Al-Jawzi ee barashada culumta sharciga iyo carabiga kuwaasi oo xaflad qalin jebin ah loogu qabtay magaalada Muqdisho. Ardaydan oo in muddo ah dadaal iyo juhdi ku soo bixisay barashada shariicada Islaamka ayaa xafladooda qalin jebinta ah waxa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan. ugu horeenna waxaa lagu daahfuray aayadaha Quraanka Kariimka ee kalaamka Allah. وحان كده فرتي أسماء حسن جامع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. intaasi ka gadaal Ustaad Cabdinaasir Shariif oo kamid ah howlwadeenada Machadka ayaa goobta ka hadlay isagoona daahfuray xafladda. dhammaan ka soo qaybgalayaasha qaybaha kala duwan ay ugu horeeyaan culamadeena sharafta leh iyo waalidiinta iyo marti sharafta qaybaheeda kala duwan dhammaan qaybaha kala duwan ee jaamacadda ay ugu horeeyaan jaamacadda Islaamiya sidoo kale jaamacadda Quraanka Kariimka jaamacadda Daarul Xikma jaamacadda Daarul Culuum sidoo kale qaar ka mid ah ardayda ka qalin jebinaysa Machadka ayaa goobta ku soo bandhigtay nashaadaad kala duwan. مرحبا بكم أيها العلماء ومرحبا بكم أيها الآباء والأمهات ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات ومرحبا بكم جميع المشاركين بيد مفتوحة وبقلوب مسرورة. duubka bulshada iyo dad meel u dagaba hal door waxa uu ah diimidii danayse dawoosho jirkeeda ku dahaaran xishoodo daa'imta daarteedo daadahaysa ubadko daryeesha dadko dacwo iyo dagaal iyo dood aan lahayno dawga toosan iyo dariiqii nabiga dadka ugu yeeraye daa'imkeen inoo dooray u dayma lahaatee aan dayacin abidu. قل waxaad tiraahdaa nabiga sharafta badanow lilmu'miniina rag mu'miniinta ee waxaad ku dhahdaa hala been min absaarihim aragiyalkooda wax kamid ah wayaxfaduu ha ilaaliyeen furuujahum farjiyalkooda daalika aragoola laabii farjigoola dhowro aska ayaa daahirnaan badan lahum mu'miniinta u daahirnaan badan inna allaha alle qabiir waa mid xogogaal u ah bima yasnacuuna waxa ay sameynayaan. waqadaa rabbiga wuxuu amray nabi allow alla ta'budu inaan nacabudin إلا إياه أصدق ما هني وبالوالدين إن أدوسم فشان لبذ والد أيو أمري إحسانا سمفل إما يبلغن دو جارو أكتر دو جارو الكبر دغنمه أحدهما لبذ والد متكود أو كلاهما أما لبذبه فلا تقل لهما هكدين لبذ والد أف هكدين فلا تنهرهما هنعنانن وقل لهما واحد كتر هذا قول هذا كريم وناك بدن. gabadha hadii ay barato cilmiga sharciga ah waxay ka saacidaysaa inay garato xaqa Allah subhanahu wa ta'ala uu ku leeyahay iyo xaqa ay ayadu leedahay iyo xuquuqda kale ee bini'aadamku ay ku leeyihiin. taasi waxay ku garan kartaa inay barato diinta. intaasi kadib qaar ka mid ah marti sharaftii kala duwaneed ee ka soo qayb gashay xafladda ayaa goobta ka hadashay waxaana ka mid ah Sheekh Nuur Cali Jaamac, Sheekh Abdul Qaadir Yuusuf, دكتور عبد الله iyo maama Xaawa Xuseen. qiimatul mar'i ma yuhsinu qofka wuxuu la qiim eegay waxa uu yaqaan qofku hadii uu yaqaano مثلا caafimaadku yaqaana wuxuu u diyaarsan yahay asbaabta qofka lagu badbaadiyo wixii banu aadanka Ilaahay karsiiyay qiimo leh waa qof qiimo leh maxaa yeelay qofka naftiisa inuu u sabab noqdo dhacdo inuu maalmo joogto oo qatar ka badbaadiyo inta Ilaahay karsiiyay. Machadka Ibnul Qayyim Al-Jawzi maamulkiisa iyo macallimiintiisaba iyagana waxaan leenahay jazaakumullahu khayr. kaalin weyn ayay buuxiyeen oo ay isu xil saareen xaqa iyo baadilka halganka ka dhaxeeya
bay qayb ka qaateen inay xaqana xoojiyaan baadilkana hoos u dhigaan waana waajib saaran qof kastoo muslim aad ayaan ugu hambaleynayaa maamulka iyo dadka runtii u taagan macadkan oo runtii aad iyo aad u magac dheer dad badan aan ka aqaan wixii marka jaamacatul qur'aan ahaan anaga naga maaragtay nagala gudboon amba xaggayna ahna insha Allah maamulka ayaan si gaar ah isla fiiri doonaa waalidiinta hooyooyinka iyo aabbayaasha anoo ku hadlay magaca waalidiinta waa inaan ilmahayga ka dhisnaa xagga diinta islaamka. ugu dambeyntii Ustaad Cabdiweli Cabdullaahi oo ah maamulka guud ee machadka ayaa goobta ka hadlay isagoona la dardaarmay ardayda ka qalin jebinaysa machadka. maanta waxaad goosanaysaan miraha dadaalkiina waxaad doorateen dulqaad waxaad doorateen adkaysi waxaan ka warqabnaa marxaladii waxbarashada aad ku bilowdeen safarkaasi inay arday badan idinkula jirtay laakiin maanta oo waxbarashadii aad ka qalin jebinaysaan tiradiina waan intaan aragna markaa taana waxay ku tusinaysaa qofka dulqaad iyo adkaysimo haddii laga helo guusha waa gaari doonaa. machadka Ibnul Qayyim al-Jawzi oo u taagan soo saarista jiil aqoon xeel dheer u leh diinta islaamka hiigsanayana hammi aad u fog ayaa qayb weyn ka qaata kobcinta garaadka bulshada. نحلة للخير أتينا نملأ دنيانا عزما نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما